waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu dhammaantiin asxaabtayda qiimaha badan ee ku xidhan qanaadkayga ayaan cumar waxaan idinku soo dhaweynayaa idinka mahad celinayaa daawashadiina haddaad qanaadkayga ku cusub tahay fadlan subscribe ii saar soo dhawaada waxaan idinka raali gelinayaa marka koobaad baaqashadii ku timi barnaamijka toddobaadkii hore waxaan ku jiray imtixaan hala ii dul qaato waan soo wadaa laakiin barnaamijka insha allah maanta waxaan rabaa inaynu ka hadalno oo barnaamijkan uu ku saabsan yahay qofku miisaanka sidee buu isaga ridi karaa ama sidee uu isu dhuubi karaa marka dadkii iga soo codsaday ama ay soo weydiiyey qaabka miisaanka loo rido ayaan maanta ugu talagalay barnaamijka haddii alla qadaro qaabka jidhka inaad dhisto qofku jidhkiisa inuu dhiso oo uu qaab qurux badan ka sameeyo waxaa ka horeysa inaad marka hore miisaanka iska rido haddaad tahay qof buuran oo miisaan leh ama u dhalo ama gadaal ha kaa qabto waxa fiican marka hore inaad miisaanka iska rido laana miisaankaaga oo weyn ama baadoo baruuri ku saaran tahay haddaad isku daydo inaad jimicsato khaladaadka dadku galay ka mid tahay waxaad qofkii maaragtay buurani hadduu isku dayo inuu jimicsado horta wuu daalayaa marka ugu horeysa jimicsiga wuu daalayaa wuu nacayaa waa marka labaad waxaa ku dhacaysa muruqii meel kasta oo jidhkaaga ka mid a muruq baa ku jira muruqa iyo baruurtana baruurtaa sareyso muruqaa hooseeya marka haddaad muruqaad jimcinaysa markaad jimicsato waxaa jimicsamaya waxaa dhiig badan dalbanaya waxaa energy badan helaya waxaa maaragtay supplement badan loo geynaya waa muruqaa koraya yaa baruurtu jimicsiga kuma korto inay ku burburtaa la rabaa markuu muruqu koro muruqii ka hooseeyay baruurta wuxuu soo riixayaa baruurtii marka waxaa muuqanaysa uun miisaankaaga waxaa ugu muuqanaya waxa fiican marka hore qofku intuusan jimicsiga bilaabin ama rag ha ahaato oo inta badan iyagu ka jimicsada garbaha iyo qaarka sare amaba dumarka ha ahaato iyagu inta badan qaarka dambe ka jimicsada waxaa fiican qofku marka hore inuu miisaanka iska rido miisaanka sababaha ugu wanaagsan ama siyaabaha ugu midho dhalka ah ugu fiican ee maaragtay miisaanka la isaga ridi karo ayaan maanta wax yar inooga soo diyaariyey laakiin way kala duwan tahay in miisaanka la iska rida khaasatan baruurtan maxaa la yidhahdaa subcutaneous fat ee qabataa maqaarka hoostiisa caloosha qabata waa waxa ugu adag oo shaqada ugu adag ee uu qofku qabto jidhkiisa ka qabto yaa waxaad u baahan tahay inaad juhdi geliso inaad ku sabirto miisaanka inaad iska ridaa waxay u fiican tahay mar caafimaadkaaga iyo saxadaada because culayska baruurta ma qaadi karaan xubnahaaga muhiimka ah major organiska la isku yidhaahdaa ma qaadi karaan baruurta waxaa jira xubno xayri ku duuban tahay sida kelyahoo kale sida ganaca oo kale xayri ka buuxdo baruuri ka buuxdo oo haddii miisaankaaga uu farabato laga yaabo inuu insuliinta amaba dheecaanada uu jidhka usoo daayo ee maaragtay muhiimka u ah inuu joojiyo marka haddaad buuran tahay ma aha keliya inaad xaragadaada isu dhuubayso iyo inaad qurux badnaato waxaa kalood isu dhuubaysaa inaad caafimaado sidaa daraaddeed waxyaabaha ugu muhiimsan iyadoo ay jiraan laba qaybood oo bini aadamka ah oo metabolismka waxaa la yidhaahda qaabku jidhku uu u shaqeeyo ee uu burburiyo maaragtay wixii uu cuno qofku nafaqada ugala baxo ama uu u burburiyo seliska laga maarmay amaba maaragtay aan loo baahnayn way kala duwan tahay waxaa laga yaabaa qof inuu si degdega markiiba miisaankiisa u dhaco dadka qaarna waxaa laga yaabaa inay waqti ku yara qaadato laakiin mid waliba uu ka midho dhalin karaa sabirun bay yara baahan tahay may fahanteen qaabka ugu wanaagsan waxa weeye horta markaad soo kacdo subaxii habeenkii caloosheena waxaa ku hadha dufan oo dhan waxaa ku hadha wasakh oo dhan subaxii markaad soo kacdo waxaan ugu horeeya aad samayso markaad cadayto kadib ha noqdaan koob biyo kulul oo karkaraya oo sida shaah oo kale ah liin dhanaan iyo sanjabiil aad ku dhex riday wax kale ha ka horeysiin calooshaada way nadiifinaysaa markasta oo calooshaadu nadiifowdo markasta oo caloosha ku socoto markasta oo bawlkaaga ama ganac maxaa la dhahdaa malawad mindhicirkaagu faaruqo baruur miisaankaagu isdhimaya marka waxaad ku bilaabaysaa biyahaas iyo liin dhanaantaas subax walba markaad soo kacdo waxaa la yidhahdaa cimrigan jidhka qaabkiisana way qurxiyaano
lama gaboobo haddaad intaa isticmaasho gaboogana way agekana way la dagaalamaa way la yidhaahdo laakiin muhiimaddu waa in maaragtay dhuubnaanta taaniyan waxaad samaynaysaa qaladaadka dadka miisaankoodu kordhay ay galaan waxaa ugu weyn waxaa ka mid ah inay iska daayaan cuntada quraacda ayaa ugu muhiimsan qofku hadduu doonayo miisaankiisa inuu dhuubo waa inuu si joogta u quraacdaa oo barmina oo weliba waqti go-an leh waa inaad u quraacataa quraacdu waa waxa keliya ee miisaankaaga dhimi kara haddaad si joogta u cunto laakiin waa quraacda borotiinka ee aan hayn sonkorta daqiiqda iyo subaga saddexdaas waa inay ka madhnaadaan quraacdaada sonkor subag iyo daqiiq saddexdaas waa inay ka madhnaadaan waa inaad ku quraacataa quraac leh borotiin hadday tahay lows haddaad heli karayso caano timir maxaa la digir fuul beans wax kasta oo borotiin leh ya borotiin baad u baahantay inaad qaadato borotiinku waa waxa ugu wanaagsan baadka oo kale the perfect borotiin oo jira baad inaad cunto organiga borotiinku waxyaabaha ugu wanaagsan ee miisaanka rida yacni wuxuu ku habsaamayaa wuxuu sahlaa jidhku inuu kaloriinta burburiyo waxaa kale uu sahlaa qofku inuu dhergo oo uu shabco isagoo markuu cuntada in ku filan ka cuno sida waxyaabaha macaanka iyo sonkorta iyo cribska iyo fast foodka iyo malaha addiction maartay qofku inuu rabo inuu cuno isagoo xataa dhergay muruqaani dhisaan oo iyagu jidhkaaga baruurka kuma soo siyaadinaya waxyaabaha borotiin kale waxaad kalood ka taxadirtaa inaad wax cunto ka dambaysa 6 galabnimo jooji stop waxba ha cunin hadday 6 gaadho jooji cunitaanka wuxuun cab biyoon cab waa inaad maalintii celcelis ahaan 4 ilaa 6 litro biyo cabta tijaabi iyagoo kaliya taa miisaankaaga ridaya laana way daalood garaynayaan waxa jidhkaagu wuxuu saarayaa maaragtay biyuhu mar walba waa muhiim difaaca u baahan midhcirka u baahan oo aan wasakhdii riixaynin biyo la-aan dhiigii baa u baahan oo haddaan la daalood garaynin adkaanaya sida malabka isjiidanaya markaasaa madaxa iyo margiyada iyo meel walba ku xanuunaysaa waxa weeyaan biyuhu waa nolosha bini aadamka oo dhammaystiran laana bini aadamku biyuhu ka samaysan waa aragteen ciid baynu ka samaysanay ciiduna roob la-aan way biidaa soo maa dhas bay noqotaa iyo bood waxaa kaloo aad samaynaysaa dadka jecel kofeyga ama shaaha waxaan jecel yihiin waxaa fiican inay iska daayaan shaaha madow oo ay cabaan shaaha la yidhaahdo shaaha cagaaran green teaga aada u caawiya miisaanku inuu dhaco miisaanka qofku iyo kofey bilaa sonkor ah kofey aan sonkor lahayn miisaankaaga uu isaguna uu ridaya marka waa inaad muddo badan baad u baahantahay inaad hawsh intaa wado inaad la jihaado inaad waxyaabaha sonkorta la iska dayso waxyaabaha subaga la iska dayso saliid haddaad rabto inaad wax ku karsato saliidahan cada inagu aynu cunaa absolutely waa waxyaabaha ugu xun waa sun sidoodaba badroola laga shiidaa iyo balaayo kajini waxa fiican saliida ugu wanaagsan waxa weeye saliidaha xagga weliba marka la eego duxda ee aan jidhkaaga ku keenay ugu subaga yar ugu halista yar waa saliida la yidhaahdo qumbaha saliida la yidhaahdo coconutka ugu wanaagsan anigu coconut wax ku karsadaa coconutka ugu wanaagsan way ka calorin yar tahay kuwa kale ka calories yar tahay kuwa kale waxaa kaloo fiican iyadana saliida saytuunka laakiin saliida saytuunku inta badan waxba laguma kariyo saladka inaad ku darsato mooyaane waxaad ka taxadirtaa inaad cunto cuntooyinka fast foodka cuntooyinka hamburgerka chipsta waxaan la shiilshiilay sonkorta lagu daray lagu shiilshiilay saliidaha meelaha ganacsatada ka taxadir ha isugu dhawaanin intaad miisaankaaga rabto inaad kusoo celiso meeshii loo baahna markaad intaa wado ee aad aragto miisaankaagu halkii la rabay inuu ku socdo halkii la rabay inuu kusoo noqdo miisaankaaga markaad aragto bartii aad ahaan jirtay haddaad hore u dhuubnaan jirtay haddii kalena halkaad la rabtay markuu kusoo noqdo waxaa kaloo jira kaniin la yidhaahdo waxaa la yidhahdaa glucagonman halkaasaan soo saaraya isagana anigu laakiin ma jecli daawooyinka koos umalan maayo in natiijo laga gaadho laakiin waxaa jira kaniinkaasi marka ay tahay daawaba kan ugu fiican bay ku sheegaan ee caawiya qofku miisaankiisu inuu dhaco
marka haddii wax kale kuu shaqeyn waayaan isagana waa tijaabin kartaa waa kan markaad laakiin aragtay aad rabtay inuu miisaankaaga ku soo noqday oo haddaad gabadh hayd haddaad nin haydba aad isbedeshay markaasaad bilaabaysaa jimicsiga markaa baruurtii meesha way ka baxday markaa muruqaagii baa u baahan intaa aad borotiinka soo siinaysay oo isku filan baa u baahan inuu koro markaasaad jimicsiga bilaabaysaa yaa xoog baan idin jeclahay waan idin jeclahay thank you very much waa ku mahadsantihiin daawashada ii sheer gareeya subscribe gareeya channelka soo dhawaada barnaamijka xiga inaga habsaami maayo ballan weeyaan